ballaaran ee hotel dalxiis ee magaalada Hargeysa ay isugu yimaadeen salaadiinta xuqaasha waxgaradka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka deegaanka bariga iyo koonfurta magaalada Hargeysa ayaa waxay taageero mugle u muujiyeen xildhibaan Maxamuud Maxamed Dheeg oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida kaas oo sheegay inuu ka baxay xisbiga maxaafidka ee kulmiye iyagoo salaadiintana sheegay in go'aanka xildhibaan Dheeg uu ka qaatay xukuumadda Soomaaliland ay ku raacsan yihiin isla markaana halka ay ku biiri doonaan dib uga tashanayaan waxaan la kulmay waxaan ka caawinay runtii marka hoos loo eego aniga xildhibaan ahaan waxaan ahaa xildhibaanada madaxtooyada kaliya sida wanaagsan loogu xushmeeyo ee soo gala anigu qaar xildhibaana oo golaha igula jira ayaa ka sii daaya madaxtooyada oo wallahi oo ka dhigay waa xildhibaan sii daa aniga halka marka bidaasay soo arkaaba la yiraahdo xildhibaano waan galaa xishmad baan ku qabay madaxweyne iyo wasiiratoona mid aan wax ka sheeganaya ma jiro laakiin beesha Maxamed Daawud ee bariga Hargeysa degta waxay ku lahayd xukuumadii hore madax fara badan markii la dhaqaajin waayay ee hadalkii sare loo qaadi waayay ee aan anigana dhowr goor dambe la yidhi u kaadi ee aan keenay waxba ka soo socon ayaa yidhi waa ku nacasnimo hadda tiraaho meeshan aniga waa la igu xaq dhowraayo waa haba kala kuma qabo oo beeshaadina cayn ka tahay hadda si joogto oo ku nacsan waa marka beesha ayaa maanta aan ku soo celiyay beeshu ilaahay mahadii way isku duubatay bari iyo galbeedkeeda way isku duubatay waxaan idhi ha ka tashato aayaha dambe waayo kulmiye anigu waxaan kaga soo boodin koorahay wuxuu wax siinaya waxa weeye dadkii soo doortay ee la soo ballamay ee su'aadiintooda iyo cuqaashooda iyo aqoon-yahankooda uu ballan u soo qaaday ayuu boosaska siinayo war eebkale ma jirtee jamacad ma jirtee waxaan ka baqanayaa gacantooda ku burburto caruurii baa maalin walba la laynaya meydkiiba ilaalee ka buuxa kalaaba ma qaadi karaan waryaa kiiga gacma dheeradii kilkiisana buu ka yimid وبلفت هورا وريا ديك كعمة ده يقتل ورينا قعدت كوب مسابقة بقى هي بالدعية صاحي لواكم تلاقوا كودا لواكم مرينا وكل تحتي وقابل يعني وانا كل عسنة لكن حالة ده صورنا إدنا عايمينه إدنا كتغنينا أورمينه إدنا أوتغنينا أورمينه واتشانينا خلاص أنا هل كانوا قارنو مي مقالة دبد ما كانوا قان قارنو halkii noo dana ayuu manfaacayna adigana kaama soo muuqato waxaan u maleynayaa wix aad noo soo wadaa kala daani noo soo wadin waa tashanaynaa heese ay isku ogaana madaxweyne haddaan mucaarad noqonay haddaan xisbiga ka mid noqonaba xaq baan kugu leenahay inaanu shaqaalahan wax ku yeelano marsabka siyaasiga ee sareeyana wax ku yeelano Dheeg baa ayaa taladii uu kula kala noqdayna kaaga hadhi mayso wixii aan kugu lahayne waanu ka sugayna si dhaqsaanu kala sugayna waxaan leeyahay madaxweyne dalka adiga u madaxweynaha dadkana adiga wada xukuma qof walibana xaq wixii uu kugu leeyahay uu ka doonayaa inaad siisaa waajib haddaad sii weydo yaa adaa kala tuurada kii markaa mucaarad noqda iyo kii maxaafid noqda mid walibana dalkan buu kula joogaa shalayto ka maalin iyo madaxweynayaal kale ayaa hayay waxay soo maray jarooyin badan markii aad uga aara madaxweynaha noqon dad uga mucaarad ah hayo saamkaan u hadlaynay si ka sii daran